iyo kaamkii ay degi lahaayeen sida maamulka degmadu ay inoo sheegeen waxaana kamid ah halkan oo howlka lagu nasiyo marka koowaad ee magaalada ay imaadaan waxaana arinkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka degmada Luuq ee gobolka Gado Isaaq Horow Luuq hadanahay siba reegada Luuq way la yiri targetka koowaad dadka ay ku nasan doonaan waxaan leenahay soo dhawaada waa kuwa guryaha nasashada oo keenay marka halka soo istaagaan gaariga kale oo qaadi lahaayoo gobolkay u socdaan abakool ama bay u socdaan ama hiiraan u socdaan halkaas ka qaadanayaan gaarigoodii kale ay ka aadayaan hay'adda inay geysayeen hay'adda qaxootiga adduunka ay meeshay doonaan dadka geysana waanu ma celinayna dhulkoodii iyo ciidoodii hooyana waatan waxaan leenahay ma aha meesha ay joogan waa halkan waa kaamka ay degayaan dadka waana xilliga aan booqanay aan kula kulanay dad barakacyaal ah oo qaarkood halkaasi sii deganaa waxaana ay noo sheegeen inay xilligan dhibaatooyinka ay kamid yihiin biyo la'aan oo ay cabasho xoogan ka muujiyeen hase ahaatee waxa ay ka codsadeen hay'adaha samafalka ah in arintaasi laga gacan siiyo raashin rabnaa barasha rabnaa isbitaal rabnaa wax badan naga maqan suuq rabnaa iska fiican la ka siday aad ku daran u baahantiin raashin iyo biyo iyo waxa dhan u baahan iyo barasho sidoo kale Isaaq Horow gudoomiye ku-xigeenka degmada Luuq ee gobolka Gado ayaa ugu baaqay hay'adaha gacanta ku haya hawshan iyo waliba kaamamkan dadka la dejinaya barakacayaasha ah ee qaxootiga ku ah gudaha dalka Kenya in xilligan lagu sameeyo biyo gelin si hawlahaas loo dadalgeliyo oo meesha dhibaatooyin ka jira waxay tahay qaxootiga waa la keenay meesha kaamka hadda dejinta Madax Cabduul la yiraahdo waxa la rabaa hay'adaha samafalka u sheegaynaa wixii dhiman oo lambar 1 ay ka yihiin biyo waayo nafta caano nolosha biyo Soomaalidu tiraahdaa qofku markuu cuntanahay biyaha cunto helo oo biyo helo ka bacdi uu nolosha raashin kale xusuusan karaa marka waxa la rabaa in meesha ayada ceelash la keeno riigga wixii qodmi karo riigga ay ka qodaan meesha biyo gelinta la dhameystiro hadda oo mana ayaa ka jiro biyo cabaar bay noo jiraan man noo dhaw biyo wala soo jiidaya way soo socdaan laakiin sida aan ka warayno saada aan ku aragno waa oo la meesh oo